arrimaha mucaaradku u aqoonsadeen khiyaamo qaran oo xiisad xoogan bulshada ka dhex aloosay ayaynu ku eegaynaa warbixin aynu ugu magac darnay isdhegayso siyaasi aan ku bilaabay golaha wakiilada Soomaaliland muxuu ahaa wixii la hor keenay ee ay ansixiyeen ma heshiiska tan iyo maanta la baadi goobayo mise waraaqo af Soomaali ku qoran oo loogu magac daray nuxurka ku saabsan heshiiska la geli doono xilligaasi shirgudoonkii golaha wakiilada intaan gacanta mudanayaasha aqalka wakiilada u taagin waxa gudoomiyihii wakiilada shacabka Soomaaliland u cadeeyay inaan la hor keenin haba yaraatee heshiiskii rasmiga ahaa waxa kale oo mudanayaasha wakiilada mucaarad iyo muxaafidba ay doodii ansixinta ka horeysay ummadda u sheegeen inaan waxa golaha la hor keenay heshiis loogu yeeri karin aan dib idinku celiyo kuna eegno warbixinteenan isdhegayso siyaasi waxa weeye darafyada xagga hoose ku xusani waxay aqoonsan yihiin in warqadan aanu golaha hor keennay aanay sinaba u bedeli karin heshiiska waxay ku sabaysan tahay wada hadalka socda ee quseeya heshiiska saamilayda warqadani ma laha shakhsiyad qaanuuni ah oo qabanaysa darafyada mar haddii aanay shakhsiyad qaanuuni lahayn mar haddii aanay sharci ahayn mar haddii aanay agreement ahayn maxay noo horkeenay waa siduu sheegay saciide tan racaaya watan saaya war waxayna hor yaallaa heshiis ma yahay mise maaha wey innagu waxa weeye waxaynu xaq u leenahay inaynu ka doodno heshiisyada caalamiga ee xukuumaddu soo gasho waxa ayaan darro ah xukuumaddii shalay halkan nimankii mariya wasiirada ahaa inay noo caddeeyeen waxaa layna hor keenay inaanu heshiis ahayn waxaan qabaa inay xaaraan tahay in dhafmadka aynu arkayno qoraalka xagga dambe kaga qoran inaanu waxaasha heshiis ahayn in caqligeenna iyo aqoonteenna la isgaraynayo waxaaba alxamdulilah haddii maanta dood loo furay oo la daawanayo oo la arkayo oo dadkii waxaana ay khusaynaysay ay arkayaan waxaa meesha lagu camcaminaya ee golaha lagu wadaa inaanu heshiis ahayn ee waraaqo wax macno badana ku fadhiyaana ay yihiin heshiis aan meesha oolin oo aan heshiis noqon karin waxayna hor yaallaa waa kanoo isagii baa dee ku qoran tahay marna contract ma noqon karo ayaa ku qoran contract labada warqadood laynoo keenay labadaba way ku qoran tahay concession agreement looma tarjuman karo ma noqon karo warqadanina marnaba contract ma noqon karta ku qoran warqadani ma aha loomana qaadan karo agreementkii shareholders company iyadaa qoran oo saxeexan saxiixina waa ka ninkii beeteeda moodaya warqadda u dambaysa saxiixa ka sarreysa akhri inagu kumaynaan qorin waa warqadii laynoo keenay ta kale ee concessionska ka hadlaysa iyana sidaas leegba waxay leedahay this term sheet shall in no way replace or be considered as the concessions agreement iyadana ma bedeli karto loomana qaadan karo heshiiskii concessions ku salaysnaayeen labada warqadood ee laynoo keenay ee la leeyahay ansixiya ayaa labaduba leh mana noqon karaan concessionskii agreementkii mana noqon karto shareholders agreementkii waxaan jeclaa halkan aan xogkii ka soo jeedino hadal qoraalkii halkan ka dhacay aqlabiyadda mudanayaashu waxay soo jeediyeen in xeerkani aan lahayn kii rasmiga ahaa sidaa daraaddeedna la celiyo wata marka ugu horeysa waxaa laynoo keenay heshiis rasmiya mu ahayn sidii xukuumadduna way ka sheegtay heshiiskaba dambaystaa ma aha waxaa la keenay 3 documenti ka koowaad waxa weeye memorandum of understanding intuu af ingiriisi bay ku qoran yihiin midna waxa weeye terms of sheet in respect of shareholders agreement ka saddexaadna waxa weeye term sheet in respect of concession agreement saddexdaa dokumentiya la keenay ma aha dokumentigii ugu dambeeyey rasmiga ahaa waxaa halkan kaloo ka muuqata in saddexda dokumentidu ay ku qoraayeen
inaan loo qaadanaynin kontraagii rasmiga ahaa iyo inaanay legally binding ahayn. Golaha ayay go-aanku ku yaallaa. waxaan soo jeedinaynaa iyagoo mudanayaashu ka wakiilo shacbiga iyo dadka guud ee qaranka laga codsaday inay waajibka gutaan. xilligaasi ayuu soo ifbaxay tuhunka la xidhiidha arrinta maanta taalla ee loogu yeedhay khiyaamo qaran. mar kale aan dib u milicsano, waxaa xilligaasi wasiir Sacad Cali Shire sheegay inaanay jirin cid kale oo heshiiskaasi khuseeyo oo aan hayn Soomaaliland iyo Imaaraadka. waxa kale oo uu cadeeyay xataa inaan saamiga Soomaaliland iyo Imaaraadka midkoodna 1% iibin karin. aynu lumino fursad aad iyo aad u qaaliya oo laga yaabo mar dambe inaanayna soo marin maalgashi bay inoo yimi innaka waan kuba dadaalinoo raadin hadduu inaga tago lagama yaabo isagoo kale inuu soo maro muddada dhow. waxaynu lumin doonaa kalsoonida baynu lumin doonaa maalgashayaasha iyo kalsoonida saaxiibadaheen. waxay u codaysaan aqoonsiga iyo horumarka Soomaaliland. DB waxba kala iibin karto muddada horena waxba kala iibin karto gaar ahaan dhowr sanadood hore. cid saddexaad oo shirkadda ku jirta ma jiro. waxaa cad weeye cid saddexaad oo saami halkaa ku lihi mudane guddoomiye iyo mudanayaal kuma jirto. xukuumadda Soomaaliland ee saamigeedu waa cadi oo waa kaa DB wala waa cadi. waxaanu haynaa waa waxa daanaga raggiisa ku jiray ceelka iyo wadaanta dawladnimada. isla muddo kooban kadib haddana waxa soo ifbaxay Itoobiya oo bar yeelatay dekadii Berbera oon hore warkeeda loo hayn, la garanayn waxa lagaga bedeshay, sida ay ku yeelatay, cidda siisay, waxa laga siistay iyo waxa Soomaaliland qarannimadeeda ay u soo kordhisay. Ethiopia, for Somaliland, and for UAE and DP World, honored really to be participating in this amazing project. And the fact that Ethiopia is part of it really gives us a lot of credibility and strength. After a year of serious negotiations, today we have concluded an agreement with the Somaliland Ports Authority and the Ports International FZE that will give the government of Ethiopia 19%. The agreement signed today, have started. The negotiations of the agreement have started about a year ago. isla xalay Sacad Cali Shire oo hadlay wuxuu dibadda haddana uga saaray isla markaasina daday heshiiska Itoobiya oo ahayd gacantii saddexaad oo wasiir Sacad Cali Shire markii hore shareeray mar kalena sheegay maantana sheelay. kolka laga yimaado gacanta afraad ee wasiir Qarqoosh dunida u sheegay oo ah iyana xukuumadii hore dawladda federaalka Soomaaliya, haddana Sacad Cali Shire leeyahay Imaaraadku iskumaanaan ogeyn sidaasi iyo Imaaraadka bayaan ah ka soo saareen arrinta. khadka waxa ku jira wasiir Sacad Cali Shire. wasiir soo dhawow. waan ku salaamayaa. waan ka qaaday mudane wasiir saad la socota xalay warbaahinta qaarkood aad waraysi siisay, waxaad ku sheegtay inaad bayaan ka dalbanaysaan Imaaraadku ka soo saaro arrintii ka soo baxday wasiir Qarqoosh ee wasiir dawlaha Imaaraadka arrimaha dibadda. wasiir waxa kale oo hore u sheegtay in heshiiskaas Soomaaliland iyo Imaaraadka kaliya wada galeen. haddana mudane wasiir waxaa mar dambe soo baxday in heshiiskaasi ay wada galeen Itoobiya, Soomaaliland iyo Imaaraadka. mar kale haddana waxa soo baxday arrintan iyada ah iyo inaydan heshiis bas saxiixin. mudane wasiir see wax u jiraan? wasiir may maqashaa? hallo mudane Sacad may maqashaa? wasiirku khadka ayuu ka baxay ayaan filayaa. dhimaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland toddobaadkii hore ayay ahayd kolkay u yeedheen wasiir Sacad Cali Shire iyagoo wali baafinaya heshiiskii rasmiga ahaa ee dekada lagu wareejiyay iyo arrimo kale oo sharci darro dawladdu dusha wali ku sidato. waxaa isna wali qarsoon heshiiskii saldhigga ee rasmiga ahaa ee isu dawladeynta iyo jujuubka lagu ansixiyay, kaasi oo golayaasha loo diiday inay ka doodaan isla markaasina kii gacanta taaga ee doona inuu hadlo
ama wuxuu shacabka uga wakiilka ahaa ka doodo loo diiday laguna meel mariyay qabta saara iyo raaciya kana وبحيا صارت صغيرة راعية وارباح الوضيع بح هياي انت اللي صغر ما ترى شيء واحد زي ما ترى ما ترى